بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ومركليو isusoo noqod wanaagsan iyo video cusub maasha Allah. Kusoo dhawaada qurxiyo caafimaad. Maanta waxaan idin wadaa face mask insha Allah. Saan u diyaarsada xoogaa idinka faa'iideynaya. Maanta aad loogu baahan yahay Ilaahay naga badbaadiyo xanuunkan socda. Intuu hayana Ilaahay ka caafiyo. Isla diyaarina marka kana caruurta yaryar iyo waxaan idin tusayaa insha Allah dadka waaweyn labada qiyaastooda. Marka hadda kan dadka waaweyn baan cabirayaa waa soo jartay marada laakiin cabirka idin tusayaa insha Allah. Kan sidii wuxuu samaysan yahay rectangle ama lady dhanka length oo dheer waxaan ka dhigay waa 8 inch ama 20 centimeter. Dhanka kaleetana waxaa waaye widthka waxaan ka dhigtay 6 inch 15 centimeter waaye. Marka 5 dadka qayb baa ka dhigan karaan laakiin ani xoogaa yar baa waafi ka dhigay. Kan kalena wax yar baa ka dheereeyay. Kana waa 9 inches kan 6.5 wax yar little bit baa ka dheereeyay isagana. Marka laba maro kala gedsan isticmaalayaa mid kasta si loo kala garto dhanka hoos ee xijinaysa markasta. Haddana waxaan sameynayaa kii caruurta meelna 6 inch baan ka dhigayaa meelna 4 inch. marada waa jaraya mara kastana insha Allah waxaan isku dayaa inaan laba nooc u sameeyo. laba maro kala gedsan aan ka sameynaya insha Allah. oo fudud yahay marka waxaa ku talan karaa dooni irbad gacanta hadaa harqaan haysatid sidoo kale harqaan ama kan gacanta lagu talo si mashiinka. Hadda kii cunuga baby caruurta yaryar baan jarayaa laba nooc baan ka dhigayaa. maradii hore aan soo cabirtay tan aan kusii kor jarayaa waa kana. marka waxaan sameynaysaa markasta dhanka banaanka mari doona qurxoon gudaha xijinaysa labada gees oo dheerna waa ka toleysaa marka hore insha Allah. waa kana kii weynaana waa laba nooc iskor saaray geesta dheer baa kasoo tolayaa langaska marka hore harqaanka ka marin doonaa insha Allah. hadhowna geestaas waxaa uga xiraysaa laastiki oo dhagaha soo qabsanaya baa uga toli doontaa uga tolayaa insha Allah. marka u fudud yahay runtii aadana loogu baahan yahay hadda.
isla tolna marka maasha allah. Kii koowaad baa hadda ka bilaabaya geesta dheer, labada dhinac oo dheer baa kasoo harqaamaya. Kana waa dhameeyey oo rogaya marka insha allah. waa rogay hadda dhanka qurxoonaa ayaa soo bixi lahaa waa soo saaray bas marka waa feereynayaa xoogaa. waxaan rabaa inuu si fiican yani u feereysmo, harqaankuusa u muuqanin. afkaas kore oo aan uga kabi doono laastigana gudaha u laabo, xoogaa yar baa gudaha u laabaya, isna waa feereynaya. hadhow waa tolaya insha allah. kana marka midkii labaad baan tolaya isna. labada gees oo dheerdheera marka hore ka tolaysa, waa rogaysaa. kana waa soo tolay. afkana intaa yar saasaa uga laabaya, saasaa uga laabaysa afka. waa feereynaysaa marka. feerada waxay kuu fududeynaysaa inuu bahalkuna qurux noqdo. midaada kaleeto meesha yarta aa ka laabay sida laastiga looga qabayo dhegta la gashanay, inay gudaha celisida aysan muuqanin banaanka inaa ka tashay dunduntii muuqanin marada. labadaasay kugu caawinaysa marka saasaa u geliya laastiga wax yar. labada gees buu ku beegan yahay mid kasta. halkaasaa kasoo tolayaa marka ka harqaamaya. dhinacii kalena waa kana. afka hore xoogaa yar baa ku celcelinayaa suusa u furfuran. waa kana maasha allah. saanuu noqday markaan tolay. kulligood waa soo dhameeyey. marka waxaa haray inay dhexdiisa uga laalaaban yahay idin tuso. marka maasha allah saasaa dhehaysaa isugu laabaysaa. marka 2 daliigood ama 3 xabba kaa jeceshaa ka dhigan kadhaa. waa feereynayaa marka hore, hadhowna waxaan ka toli doonaa labada gees. saasaa u feereynayaa. kan labaadna in tusaya. marka hore saasaa usoo laabaysaa, saasaa u laabaysaa. haddana saa waxaa fiican meesha garka xigsanaysa xoogaa inay ballaaran tahay si uu garka u qabsado. hadhow markaa xiranaysa wax yar baa kala bixinaysaa. laalaabkaas waa ku kala bixitaantaa. kana asna saasaa ku dhamaynaysaa marka. waxaan jeclahay insha allah inaad ka heli doontaan, tijaabin doontaan guriga inaad ku samaysataan haddii ilaaha yiraahdo. fadlan channelkana subscribe hadaa ka heshaan asxaabtiina la wadaaga.
like tan hanaga ilaawina, commentiga insha Allah waxa jeceshin inaan soo geliyo hoos noogu reebo wax kasta aad jeceshin inaan nala wadaagtid. halkaas ka toolaya marka feerada oo soo dhameeyay si ay u furfuranin halkaas ka harqaamiya geeska.